السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada saaxiibayaal magacaygu waa Maxamed Yuusuf halkan naga daawanaysan waa Maamuusa Media channelka subscribe saar hadaad nagu cusub tahay hadaad hore nolo joogtina muuqaalka like saar kana mid noqo asxaabta ku xidhan Maamuusa Media. Halkan waa deegaanka Caleyd oo inooga soo diyaariyay warbixin isla markaana ku saabsan taariikhdeedii Caleyd iyo taariikhdeedii iyo magacani sidoo ugu baxay iyo Caleyd markii hore waxay ahaan jirtay iyo magaranaysa heestan magaceedu ku jiray Caleyd lagu daray magaranaysa Mahawd iyo Caleyd ba caawina hirkan tagi Mahawd iyo Caleyd ba bal sidii ku yimaadeen iyo magacaantaas ay ku baxeen iyo Caleyd wixii ahaan jirtay markii hore isla markaana waxaan ka wareysan doonaa oday deegaanka ah oo meesha aad u kala yaqaan isla markaana taariikhdeeda si fiican u garanaya Caleyd iyo wixii ay soo ahaan jirtay si wanaagsan u garanaya marka saaxiibayaal muuqaalkeeda idin sii deyn doonaa daawasho wacan channelkana subscribe saara videogana like saara aad baa mahadsantiin waxaad iga wartay imeenow halkan la yiraahdo Caleyd horta waa meel taariikh dheer laho dadku aad u maqleen waan gartay laakiin de faahfaahin saasa kama haystaan haye bal marka halka Caleyd ka warano magaca maxaa loogu bixiyay Caleyd Caleyd waxa loogu bixiyay horta lafto sideedaba laf qaali ah haye xoolaha gugii daaqa badaasiyay lahayd kana sii jeeda xag waqooyi iyo koonfur buu kala jeeday lahayd sax xoolaha gugii ka guyeystaa waxa la oran jiray marka saylidaha la geeyo tolo warigaas ma Caleyd buu ka guyeystay bay dilaalinta oran jirtay sax badaasiyadeedaas loo soo gudooran jiray sax waxay lahayd oo kala saddex caadood oo biyaha qabta waan gartay oo waaweyn haye midna dhexday ku lahayd midna galbeedka midna bariga ku lahayd waan gartay biyaha marka laga cabo halka biyaha laga cabo waxa la bixiyaa caado sax caadihi biyeysnaaya Caleyd kolkii halka caadaha loo bixiyay ayaa laftana Caleyd loo bixiyay sax weey magacu horta sidoo ugu baxay waa naxfiga biyaha ah ku jiray ee meelaha godan qaban jiray biyaha markii laga cabo baa laftan aynu magac u bixino sax waaye iyadana Caleyd sax dhulkana lafaha hareeraha ka xiga caaday lahaan jiray kolka marka la isu tilmaamayo caadihi biyeysna marka la yiraahdo deed meel kale kaaga dhacaysaado waa caade baad oranaysaa caadihi Caleyd sax weey saas magacu ugu baxay saas horta magacu ugu baxay waan gartay iyadoo oo caadaha Caleyd ee biyeysan la yiraahdo u tis qaaday magacaasi ayuu ninka Cabdiqays la yiraahdaa deegaanka yimid haye isaguna waa ka heesta u qaaday dee ugu daray sax magaceedii markaasuu intuu kor u qaadmay dhulka marka degmada Xarshin la yimaado qofkaan aqoon u lahayn wuxuu yiraahdaa Caleyd wahalkii waa la isku tilmaansanaya waa laf dheer oo taagan Xarshinna waxay ka xigtaa xagga hawd iyo koonfur bay ka xigtaa Mahawd iyo Caleyd ba wixii Caleyd ka shaqeeyay hawd loo oran jiray sidaas ay ahayd صح waxaad ka wartaa marka imika caadihi maxay yihiin iyagu caadihi waxay yihiin kulli way isbedeleen haye mid iyadu waa tucaamaho ducooyina waa lagu dhigaa waasina waa lagu doortaado waa cad xiran oo waa adarki doontaa wax yar bayna biyihii ka sii qabteen oo waqtigii baa isbedelo dhulkii waa la deegaameeyay dabaylihii baa ku batay aasitaankii camuuda ayaa dhulkii ku batay bariga dhulku bilaa barkad buu ahaa waan gartay biyaha halka imika daaqo ciriiri kaga jiray biyuhuna ciriiri kaga jiray waan gartay meesha yare marka biyuhu ay qabata barashirka la saaray ilaahay damku wargurina aatay dadna imika markii riigagiyo barkada iyo reerihii bariga gaadiidka dhaasan jiray dee booyadaaba imika loo dhaamiyo aqliyada sabaa loogu shubaa marka way iska dayacmeen caadihii oo imika aala biyo ma qabtaan laakiin qaarkood waxa loo sameeyay dhir baa ku beeran lagu sharaxay oo si ducooyinkana lagu dhigto shirarkana lagu qabto ragana lagu doorto waasiya lagu doortay sax weey kulli inaad aragtaan waa suuragal aad baad mahadsan tahay sidaa inoo sheegay caadaha waa ta ugu quruxda badan leh caadani isla markaana waa ta lagu doorto ugaasiyada iyo magaranaysaa kolba qofkii la caleema saarayo
waxa kaloo lagu dhigtaa ducooyinka lagu qabtaa. Waa ta ugu quruxda badan ee ugu dhirta badan leh. Meelahaas waa meelihii biyo qabatinka berigii hore biyo si ay imka sii galaan. Markaa meeshu waa meel godan oo biyo ku soo ururaan. Imikana waa adiga arkayo dhirtaasaa ku taala iyo geedaha waaweyn ee la harsanayo. Markaa imika biyo badan ma galaan, meel yar mooyaane biyo badan ma galaan. Dhirtaasaa deetana markaa la iska harsadaayo lagu qabsadaa ducooyinka iyo shirarka iyo kolba hawlaha loo baahan yahay. Sidaa imika muuqaalkeeda inooga muuqato waa meel inaga hooseysa oo markaa waxay leedahay gebiyadii baa muuqda, ciiddii laga qoday meeshii la dhigay hareeraheedii la dhigay ayaa taag yar sii ah. Markaa imika dib aynu ka yar baxnay dhinaca inagoo dibadda ka sawirayna dib aynu yara durugnay. Wata inoo soo muuqato waa meel jooggeedu markaa uu hooseeyo. Waxaanu taaganahay meelihii ciiddii laga qoday la dhigay baynu taaganahay. Markaa waa koornayaasheedii dhinaca bari waxaanu ka taaganahay galbeed. Markaa meel yar waa imika biyeysanta sidii hore u biyeysmi jirtay uma biyeysanto. Markaa taariikhduna saa inoogu sheegay. Waxaan iska daawan doonaa muuqaalkeeda guud. Meesha yar imika inoo muuqata ayaa sii biyeysanta. Muuqaalkeeda guud iyo waxaan iska daawan doonaa quruxdeeda geedaha dhexdooda iyo aynu marmari doonaa meelaha ay ugu quruxda badan tahay. Ardaaye iyo waxay leedahay meelo aad u qurux badan iyo dhir badan oo aad u qurux badan bay leedahay. Muuqaalkana like-taa ka ilaawina, channel-kana subscribe saara. Kole deegaamada iyo kolba meesha ugu quruxda badan baynu soo duubi doonaa.